war aan wanaagsaneyn ayaa laga soo sheegayaa laacibka lagu magacaabo Zakariya Maxamed kaasi oo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya da'da 17 jirada maanta lagu waday inuu kula midoobo dalka Itoobiya. wararkii ugu dambeeyay ku aadanaa safarkii Zakariya oo la hakiyay hadaba warar kala duwan ayaa markaasi laga warinaya. warar qaar waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Toulouse oo markaasi ka ciyaarto Horyaalka Faransiiska waliba kooxda markaas sidoo kale ciyaaraankan uu ka tirsan yahay ay markaasi ka talinayso in ciyaaraankan uusan ka mid noqonin xulka qaranka Soomaaliya ee da'da 17 jirada. dhinaca kale warar qaar waxay sheegayaan laacibka loo balan qaaday in la siin doono 200 iyo sidoo kale 50 euro haddii uu dhaliyo gool xulka qaranka Soomaaliya asagoo xanaaniyadiisa ayaa waxay tibaaxayaan in aabaha dhalay wiilka lagu magacaabo Zakariya Maxamed oo da'diisa markaas sidoo kale ay tahay 16 sano jir uu diidan yahay in wiilkiisa kaligiisa uu markaas sidoo kale soo duulo ama diyaarad uu soo raaco. shalay ayaa ahayd markii la hakiyay safarkii laacibka markaas lagu magacaabo Zakariya Maxamed iyadoona markaas sidoo kale maanta uu la midoobi lahaa xulka qaranka Soomaaliya oo markaas sidoo kale galabta qaadan doono tababarkooda ugu horeeyo ayagoona ku qaadan doono dalka markaas sidoo kale Itoobiya lagu magacaabo. hadaba wararka qaar waxay sheegayaan in aabaha dhalay laacibka lagu magacaabo Zakariya Maxamed uu aabaha markaasi ka cagajiidayo in wiilkiisa oo da'da markaasi 16 jir ah inuu kaligiis diyaarad soo raaco si uu xulka qaranka Soomaaliya ula midoobo. dhinaca kale waxay wararka sheegayaan in kooxda markaasi uu asaga ka tirsan yahay qudheeda ay ka talinayso in ciyaaraankan maadaama muhiim u yahay ciyaariyahan da'yar uu yahay in markaasi kooxda uu sii joogo. Zakariya waa ciyaartoy da'yar ah waa ciyaaraan Soomaali ah da'da markaasi 17 jirada ayuu markaas soo kale ninka lagu qiyaasaa waxaana xulka qaranka Soomaaliya ee ku sugan dalka Itoobiya maanta lagu waday inuu la midoobo laakiin warar aan wanaagsaneyn ayaa laga soo markaasi tariyay maadaama ninkan hakad markaasi la geliyay safarkiisa markaasi ku aadanaa. laakiin hadda labadan sheek ayaa laga soo warinaya Zakariya waxa la leeyahay ma uusan u duulin dalka Itoobiya xulka qaranka Soomaaliyana ma uusan ka mid noqon. Soomaaliya oo ku sugan dalka Itoobiya ayaa galabta qaadan doonto tababarkooda ugu horeeyo ayagoona halkaas markaas ku qaadan doona.